ودعاني وحادك نوقاري لاينبو قرتا يد قدح لي يبدوني يوهنقول وحادك نوقاري لاينبو قرتا دالقدود أنا قبل دون هين وحادك نوقاري لاينبو قرتا تبقى تالي جايد قرد مدو وحادك نوقاري لاينبو قرتا السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلان وعنو وناكسن دمان خيارتا هذا هودا نغلا سعطاي داودا يالواحد كسو دواتان برنامجكي آلابا إذي كسو بيحجيري كنال كدغنكا وآلابا كفالودا وحيابها كسابساني دهايا دغنكافك الصوماليغا برنامجكي نمانتا وحاو دايران ياي نوع كميدا وغادا إلو يغانا قرايادو واشنبيرتا وغوين إيغيغا صوماليدا لغا هيلو ديرار أهان وحا قياسا ديرار كنيرغاها غيلو ودالو waxay leedahay laba jeenyood oo xooggan mana awoodo inay duusho taasoo aanu culayskeeda aanu u saamaxayn inay duusho oo maaxda hawada sare ee shimbiruhu ku bardootamayaan gorayadu waxay ku dhaqantaa dhulka bannaanada ah waxayna dhashaa beed 10 jeer ka weyn beedka shimbiraha kale dhalaan labkeeda waxaa loo yaqaanaa goray haldhaa halka dhedigeedana loogu yeedho garayo cawl meesha ay beedka dhigato waxaa loo yaqaanaa goof waana god yar oo ay hoos u xidhay isla markaana intay dhigto beedka ayay baalasheeda waaweyn dusha ka huwisa si ay ugu dilaacaan mararka qaar beedka ay ku fadhiisato ayaa mid ka mid ah ay u dilaaci waaya oo ay kaga tagtaa goofkaasi midkaasna ayaa Soomaalidu u taqaanaa halgarac kooxda gorayada yaryar ah waxaa loo yaqaanaa fiil halka wadarta gorayada ee meel wada daaqaysan ay Soomaalidu ku yeedhaan gawar gorayayn dhasha gorayada markay dilaacaan ilaa intay aaranka tahay waxaa loo yaqaanaa raanyar ama wariile gorayadu waxay quudataa dooga caleenta iyo nooc ka mid ah quruuruxa midab ahaan goray haldhaagu waa uu ka qurux badan yahay goraya cawsha inta badanna goray haldhaaga ayaa wax lagu amaanaa gaar ahaan hablaha timahooda marka hal abuuradu ay sifaynayaan daawadayaal intaasi idilahaanba waxaynu ugu dhan barnaamijyadeeni aynu aalaaba ku eegaynay ugaadha waynu maanta ku lafaguraynay ugaadha loo yaqaano gorayada labkeeda dhedigeeda magacyada iyo astaamaha ay leedahay ay kaga duwan tahay ugaadha kale barnaamijkana waxaa idinla socodsiinayay aniga oo ah Casir Aadan Salaamaan tan iyo intaan ku kulmi doono barnaamij noocan oo kala idilahaanba waxaan idinku dhaafayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh